ورد جوابها في العلنتا حلقي كوها بونتهاي طبعا وحانو أرقنا دادك قار وهذا وسو توريا inaguna aan jawaab fiican aan siinayn dadka qaar markay doonayaan inay maskaxda tijaabiyaan ay ku soo tuurayaan su'aal kaftana ama dhaga hadal kaftana ama erey u socda qaabkii loogu talagalay qaab aan ahayn tudhaba waxa la doonayaa adigu inaad falcelin siiso kadibna aad ka gudubto haddii kale uu ku soo biirin doonaa maalin kale anigu maanta waxaan ku sheegayaa dhowr tusaalahaas oo rabo inaad ka qaadato fikrad inta badan waxyaalaha soo gudbiyo anuu haddaan ku soo gudbiyo 1 iyo 2 iyo 3 ilaa 5 waxa la doonayaa kunka kale inaad maskaxdaada aad adigu ka keento oo aad keedka ka soo saarto meelaha aad ku xidhxidhay iyo bacaad ku xidhan ka soo saarto intaas oo kaftan tusaalaha koowaad waxaan u maleeyaa in ay badankiinu arkeen ama akhriyeen ninba wuxuu ka arkay sheedani soo socda markuu soo dhawaaday ayuu ku yiri waxaan ku moodayay gabadh isla markiiba falcelin degdeg uu siiyo jawaab saxsan oo waliba waqtigeedii taagan wuxuu ku yiri anigu waxaan ku moodayaa nin bal ka waran sidoo u dhigay muhiimadu waxa weeye isla markaaba inaad jawaab kulul siiso adoona caroon adigoona xanaaqin qofkiina maskaxdiisa waxa diraysaa xabadii Arabiguna waxa lagu yiraahdaa tilka tusaalaha labaad ninba doonaya inuu ninku dhaga hadlo ninkaasina uu indhalaa markaas wuxuu weydiiyay xukuudi adigu dadka kula midka Ilaahay wuxuu siiyaa hadii uu indhaha ka qaaday bedele adigu Ilaahay muxuu kugu bedelay indhaha uu ka qaaday markaas uu ugu jawaabay Ilaahay wuxuu igu bedelay dadka noocaaga kala inaan arag ma aragtaa jawaabtaasna waxay ku haboon tahay su'aashu raggu waa 4 nooc midkood kow waa nin wax yaqaan haddana og in uu wax yaqaano kaasi waa caalime cilmi u doonta 2 waa nin wax yaqaan balse ma oga in uu wax yaqaano kaasi waa mid aan wax ogeyn ee baraarujiya 3 waa nin aan waxba aqoon balse uu og yahay in uusan waxba aqoonin kaasi waa jaahile wax bara 4 waa nin aan waxba aqoonin mana oga in uusan waxba aqoon kaasi waa doqone isaga xarara nafa mid u naxariista dadka xitaa haddii ay iyagu ku naxariisan quusashadu waa inaad ka gaalowday naxariistii rabbi xaasidin qof kale xaasidnimadu waxay xumaysaa nolosha quruxdeeda ereyga maya waa jumlad dhamaystiran oo u baahan in aad afkaaga barto iyo haye si fudud waxa ay halaag u horseedaan noloshaada si aad u hesho waxaad jeceshahay ugu horeyn waa inaad u dulqaadato waxaad neceb tahay 3 habdhaqan ayaa kala tisa qalbiga cunitaan xad-dhaaf ah hurdo xad-dhaafa iyo hadal xad-dhaafa marnaba ma garan kartid dagaalka farsoon iyo halganka qof ku jiro ahow mid naxariis badan yaan hadalkaa tegin qof kasta tiisa ayaa haysata maanta waqtiga iyo waayuhu dadka waa u siman yahay